bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u wanaagsanaa qayaarta hawada naga daawanaysaa kusoo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kala qayb galay madaxda caalamka shirka isbedelada cimilada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda fiilan u fadhiyo Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaalkii ka dhacay deegaanka Qaayib ee gobolka Galmudug oo war ka soo saartay dagaalkii ka dhacay maanta deegaanka Qaayib ee gobolkaasi Galgaduud ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiirada duulista ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo garabsanaya dadka deegaanka ayaa waxay isku fidinayaan deegaano fara badan oo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftakareen oo kulamo la qaatay dadka ku dhaqan degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool faahfaahin ka soo baxayo dil loo geystay wiil dhalinyaro oo ku dhaqnay qayb ka mid ah degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hilaac